aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta oo bisha 8aad ay tahay 10/2024 inaan halkan ku daafurno tartan loogu magac daray tijaabi nasiibkaaga ama erebixinta aan loo sameeyay xulashada xalaasha ah oo baqtiya nasiib u yaala muwaadiniinta iyo macaamiisha Puntland oo dhan ee shirkadda Golis isticmaala in magaca Qardho laga daafuro aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkan ka daafurno waxaan kale oo bogaadinayaa in shirkadda Golis si bilaash ah bulshadeeda ay ugu celiso abaalmarin nooca kana waana ku dhiirigelinaynaa in ay halka ka sii wado hadda sida la sheegay magaca Qardhoodna waxa laga daafuray gaari ay u yaala dhammaan macaamiisha Puntland oo dhan sidoo kale magaca Laascaanood sidaas oo kale gaari macaamiisha reer Puntland oo yaala waa laga daafuri doonaa isagana iyo macaamiisha isticmaasho dhan ee gobolada kala duwan marka waa bogaadinaynaa arintaas waana muhiim in shirkaduhu bulshada macaamiisha u ah ay wax ku soo celiyaan anagoo waxa maqraati ka nahay inuu gaariga halka yaalo waxa maqraati ka nahay sida hadda halkan laga sharaxayay in si xalaal ah loogu tartami doono reer Puntland oo dhan iyo reer muxuu inta isticmaasho Golis oo dhan uu furan yahay macaamiisha taasna waa ka maqraati kici doonaa hadhowna madasha lagu wareejinayo insha Allah waa ka soo qayb gali doonaa maqraatina waa ka ahaan doonaa waana soo saari doonaa ciida ku guuleysatay marka bulshadu arinta ka faa'iideysato shirkadda Golisna uga mahad celinaynaa xulashada ay magaca xulatay iyo sidoo kale inay macaamiisheeda wax ku soo celisay inay joogtaysana waa ka codsanaynaa si macaamiisha tirada badan oo shirkaddu leedahay ay wax ugu noqdaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu